wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka wararka ee warqad news tv kusoo dhawaada warbixintan gaarka waxyaabaha aynu diradda ku saari doono waxa qaybka xaaladihii ugu dambeeyay ee xaaladda Maxamed Ibrahim Macallim oo afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta qarax lagula ebeegtay magaalada Muqdisho waa sida xaaladiisa caafimaad qasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo ujeedooyinka al-shabaab ay ka lahayeen qaraxa ismiidaaminta ah ee Maxamed Ibrahim Macallim oo ay la eegteen ayaan warbixintan ku dul istaagi doonaa fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaara si share garay oo saaxiibadada kale la sii wadaag una duceeyay in Allah uu ka kiciyo Maxamed Ibrahim Macallim oo qaraxa al-shabaab ay la beegsadeen adigoo oo Allah uga baryayo caafimaad taama haddii aynu ku bilowno xaaladda afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya caafimaad Maxamed Ibrahim Macallim oo ayaa haatan mid aad u wanaagsan kaasoo waxyeello ay ka soo gaartay qarax ismiidaamin ah oo barqanimadii maanta lagula eegtay magaalada Muqdisho si gaara wadada dabka Maxamed Ibrahim Macallim oo ayaa la sheegay inuu dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa isla markaana la dhigay isbitaalka weyn ee Digfaar ee magaalada Muqdisho xogta ayna ka helna qaraxa lala eegtay ismiidaaminta Maxamed Ibrahim Macallim ayaa sheegaysa in waxyeelaha ugu badan ay ka soo gaartay qaybaha dambe ee jirkiisa balse xaaladiisa haatan way soo hagaagayso way wanaagsan tahay sida ay shaaciyeen dhaqaatiirta gaarka ah ee la tacaalayso qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale looga hadlay weerarka lala beegsaday afayeenka xukuumadda waxaana lagu sheegay in dhaawaciisu uusan ahayn mid halis ah afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim oo dhaawac ka soo gaaray weerarka al-shabaab la beegsadeen gaariga uu saarnaa xaaladiisa dhaawaca ee soo gaartay ma ahan mid halis ah waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Roble Maxamed Ibrahim Macallim oo horey ula soo shaqeeyay BBC-da ayaa ka badbaada ugu yaraan ilaa 4 qarax oo midka maanta lala eegtay uu shan ka yahay oo isaga si gooni ah loo rabay in lagu qarajiyo qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo mar kale la beegsaday Macallim waxa uu ku soo aadayay iyadoo arbacadii weerar loo adeegsaday ismiidaamin uu ka dhacay wadada 21 Oktoobar kaas oo al-shabaab mas'uuliyadooda ay sheegteen sidoo kale qaraxa maanta lala eegtay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim ayaa mas'uuliyadiisa waxa sheegtay al-shabaab dadka goobjoogayaasha ah waxay ku warameen in qaraxa qof uu la taagnaa wadada isla markaana wada leexada uu ku soo leexanaya Maxamed Ibrahim Macallim sida aynu xogta ku helayno oo xaafadiisu u socday qofka uu ku soo booday gaarigiisa sidaasna ugu dhagay daaqada uu xigay balse xaaladiisu way wanaagsan tahay halkan waxa ka dhacay qarax waxaan anigu halkaasan marayay waan xambaaroday wadada bartaasan marayay waan xambaaroday markii uu dhacay si ay wax u dhaceen ma arkin laakiin waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantay Allah u boogadhayo gabadh baa meesha iga xigsatay waxaan arkaynay qof gaariga daaqadiisa haysta daana macluumaadyo qof shaxaadaya laakiin waxaan arkaynay qof daaqada haysta kadib daaqada gaaru soo galay meesha gig baa yeeday wax kale aan arkaynay ma jirin waxa hilibka meesha waran mooyaane iyo qofkii daaqada hoostiisa yaali mooyaane wax kale ma arkin waxaa sidoo kale qaraxa ka dhashay khasaare soo gaaray dadka ag dhawaa goobta iyo sidoo kale burbur dhismayaashii halkaas ku yaala ka dhashay waxaana burbur xoogan oo baaba ah uu soo gaaray gaariga uu wata afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim si kastaba haatee magaalada Muqdisho waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay isjiiteed oo wali ka taagan bayaanka doorashada oo wali isku hayaan madaxda dalka taas oo loo sabaynayo xaaladaha amni darro oo ku soo badanaya caasimadda isla markaana waayihii dambe si gaar ah madaxda iyo sidoo kale shakhsiyaad kale loola bartilmaameysanayo gawaarida ay wataan qaraxyada al-shabaab ay ka dambeeyaan Maxamed Ibrahim Macallim xukuumadda afayeenka federaalka ee Soomaaliya markii uu ka badbaado horay kana bogsada dhaawacyadii ka soo gaaray weerarka hotelka Jazeera waxa ugu xigay weerarkii maqaayada Lido weerarkii hotelka Maka al-Mukarrama iyo qaraxii ugu dambeeyay ee hotelka Lido dhamaantood waxa ka soo gaaray 4taas weerar oo hore al-shabaab ay ka dambeeyeen dhaawacyo balse maanta ayaa mar kale loo jiifiyay isbitaalka dhaawac culus oo weerar ismiidaamin ah oo isaga lagu talagalay in lagu dilo lagu qaaday inta ayaan kusoo gabagabeynaa warbixintan gaarka saaxiibayaal muuqaalkan haddii ku soo gaara si share galay saaxiibadana la sii wadaag una duceeyay in Maxamed Ibrahim Macallim Allah uu ka bogsiyo dhaawac culus ee ka soo gaaray qaraxa maanta lala beegsaday mahadsanidin